جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ذنوب تلقى وحاقوا علس shirkiga kadibna waxa soo raaca dhiig la daadiyo oo xaq darro lagu daadiyo. sidaasi waa sida ay yiraahdeen a'immada Imam Shaafici iyo ninka la yiraahdo Ibn Hazmi ayagoo ka qaadanaya Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dambi ma jiro ka weyn gaalnimo kadib laba qodob: salaad kas looga tago ilaa waqtigeedii dhabcado oo buuxo, iyo naf mu'min ah oo kas loo diro xaq darrana lagu dilo. bacda shirki dambi ka weyn ma jiro. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala meel cad buu masalada saaray. goodiga ugu adag ee qur-aanka ku soo aroorayna wuu ku sheegay: ruuxii ruux mu'mina dilo kas u dila abaalkiisu waa jahannama, waana ku waarayaa. allana waa u cadhooday, waana lacnaday, cadaab weynna waa u diyaariyey. nabigeennana sal alla alay wasalam wuxuu yidhi: ruuxa mu'minka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin. dhiig xaaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhyamayaa, waasacnimadii buu waayayaa, xaalad khatara iyo cidhiidhi buu gelayaa xagga diinta. arrintuna waxa weeye sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh: hal ruux oo mu'min oo xaqdarro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oy zuusho. adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do baa ilaahay kala fudud hal ruux oo mu'mina dilkiisa. maxaa yeelay mu'minku waa ka xaq weyn yahay, ilaahay agtiisana waa ka karaamo badan yahay adduunyada oo dhan. xataa kacbada, sida xadiidka nebiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam, xataa kacbada waxaa ka qiimo badan ruuxa mu'minka ah. maanta kacba la dumiyey, nin kacbada tegay oo dumiyey xaalkiisu inalama fududaadeen. laakiin ninka boqolka naf ee mu'mina isu maray cagta mariyey warkiisu waa fudud yahay. allah tabaaraka wa tacaala naf mu'minada agtiisa kuma fududa. malaa'igta markuu rabbi ku yidhi waxaan abuurayaa dhulka, waxaan ku abuurayaa addoommo kuway ah oo u kala dambeeyo maamula ibni aadamka laga hadlayaa, ayay malaa'igtu waxay yidhaahdeen: atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa. rabbiyow, dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiigga daadisa? malaa'igtu u fiirso, dunuubtii kaloo dhan mayna sheegin, laakiin ibni aadam waxay ku eedaysay oy ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye see baad dhulka u keenaysa? ma waxaasaad rabbiyow dhulka keeni dhiig la daadiyo? sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horreeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiigga u horreeya. intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin, dhiigga ugu horeeya awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati dimaa. dhiigguma sahlana. ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanee qalbigiisa wax yaroo iimaana ku jiro, ruux muslim ah dilkiisa xataa kelima niskeed, xataa hal xaraf kagama qayb qaato. waa ka cararaa, waa ka ixtiraasaa, waa iska ilaaliyaa, waa iska jiraa, waa ka dhowrsadaa. leanna waxa weeyaan waa meel halis ah, ruux galayna kama baxo. sida asarka cabdillaahi bni cumar uu tilmaamayo, ruux galay kama baxo, kamana bixi karo. bal waxaa dhacaysa marka aad dhiig daadiso, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiiggaasi inuu kuu jiido dhiigag fara badan, oy markaa kuu fududaato inaad dhiigga cabto, ood bada dhiig ajiidho, oodan u aaba yeelin waxaad samaynayso. waxay ka dhalatay dembi aad gashay nataa'ijtiisa waay.
arrintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doonaa soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa tacaala maxaad samayn doontaa rabbiga markaad intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa tacaala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها ضعية وواحد لوجنح وأنا واحد لقى مرجوده وأنا واحد لقى يقصده حالته سواحي سي أذكته مركز جرائم تنوع عصر لجوس سماينا يو مجع جهاد مركز لجوس سماينا يو مجع دين إلهي بالله نصرينا يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo